السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكالنتادي تيري walaalaha meel kastoo joogtaanba allah subxaana wa tacaala waxaan nooga rajayn inuu dhammaanteenaba na xifdiya masaa'ibtana naga ilaasha intaas kadib walaalaha degan wadanka netherland mar walba waxaan usoo gudbinaa barnaamijyo wixii soo kordhaya sidii dagaalkii ukraine u dhacayba korontadii cirka isku shareertay gaaskii qaali u noqday sidaa daraaddeed marka waxaa la sameeyey wax la dhahay energy to slaaq oo wadanka netherland dowladeedii overhidekii hore u sameysay sanadka marka 2023 gabagabo waaye 1300 euro of 800 euro of needs heb je recht op energy toeslag 2023 waxaa xaq u yeelanaysaa 1300 ama 800 ama qameetiyada qaar 900 inay bixiyaan ayaa xaq u yeelan doontaa haddii aad tahay dadka minimal loanka ah ama dadkii sanadkii hore qaateen wax yar u malaynaynaa waxay ka bedeleen sanadkii horey ardayda qeybay sii jireen laakiin qeybihii meel kale u wareejiyeen hadda hooq tuslaaq la bixinayo waa 1300 euro 1300 qeybtaas hore qamitnaimi aqan 1300 ay bixinaysay 800 mar ah ay soo shubtay 500 marka isku soo duuduub insha Allah sida sawirka kaaga muuqdaba energy funds 2000 headset iyo akhmeent magaalada degan tahay calanka sida kaaga muuqdaba cagaarka meesha u badan yahay hadii qameetigaada yahay 1300 xaq u yeelanaysa inta waxaan malaynaa magaalada inisqeede iyo inisboolo yihiin kuwa 900 ku qoran magaalooyinka qaarna waxa ku qoran 800 kuwana umbikantu way lama yaqaan lama sheego isku soo duuduub ala kulli xaal hadii sanadka hore qaadatay sanadkan xaq u yeelanaysa hadii aan dadka degan qamitnaami soo qaato halkaas ka fiirinaysa website-koodaas oo kuntu waxa lagu dhahay fanaafay January 2024 energy to slaaqan faraaqan waa sameyn kartaa laakiin goorma sameyn kartaa inta lagu cadeeyo wax kasta waxaa lagu dhahay Plangride umtivate waxaa muhiim ah inaad ogaato waxaad helaysaa lagu dhahay in December een brief van ons warqadaas as u recht heeft op de slag xaq baa u yeelanaysa haddii warqadaas ku timaado oo hoef niet zelf te doen waxba inaad sameyso lagama rabo documentnaami maakt geld over bankrekeningkaada iyada kugu soo shubaysa laakiin het geld aan de bank wax la heli doonaa 4 December ilaa 22 December lacagtaas soo dhici doonta waxaa lagu dhahay marka meeshana muhiima heeft u in December geen brief aan de bank haddii warqad lagu soo dirin ama emailkaaga dowraha ku soo dhacay digdigaaga lagu soo dirin en is het niets overmaken lacagtaas heli maysid faraaq vanaf 2 Janaayo 2020 markii laga bilaabo ayaad aan faraaq adiga self u sameysan doontaa muddo 8 week ayuu processes qaadan doonaa forwardna jiro oo shuruudo ah wixii lagu weydiiyo waa inaad ka jawaabto laakiin asalka sidii la isla ogyahay waa automatic ya marka goorma waxa la soo ogolaanshaha waxay bilaawdeen Aircel camera waxay ka soo gudubtay 3 October 29 November heeft gemeente raad ingestemd macnaha qameetiyada waxay leeyihiin raadis liit wax la dhahay dad oo baarlamaan camal ah qameetigaas mas'uulka ah oo xisbiyada kala duwan ah Qorolinks BFDA ku jiro CDA ku jiro dhamaantood kuwaas go'aamiyeen in dadka midlaaqa incomiska dadkaas diese isbedoel om te helpen hoge energy kosten in laga caawiyo hadafka ugu muhiimsan waa intaas waa la fahmaa u malaynaa sax haddii marka arday aad tahay student haddaad tahay geen energy tuslaaq ma u yeelanaysid bay qameetiga degan tahay maadaama ood volunteer tahay laakiin waxaa laga rabaa inaad weydiisato duo ya dienste uitvoeren onderwijs
halkaasaa waxaad ka helaysaa farhood for energy cost iyaga xaggooda loo wareejiyey oo qolooyinka waxbarashada ku jiro hay-adda waxbarashada ayay ka doonan doonaan. waa la fahma umaleyn kulley su-aalaha ka jawaabay inta badan waa su-aalaha aan soo noqnoqonayo goormaa lacagta la helaa, goormay soo dhacaysaa 4 December ilaa 22 haddii warqad lagu soo dirana. haddii warqad lagu soo dirana dabcan waa helaysaa lacagtaas automatic. haddii warqada imaan weysana ilaa 22 ku imaan weysana adiga waa inaad 2 Janaayo markii la gaaro aada weydiisato deegaankaad degan tahay qamitigaada ama consulkaaga ama command house-kaaga. intaas waa lala fahma umaleynaa. intaas waa wixii cusub. mar walba wixii cusub waa la wadaagnaa insha allah. wixii dhinaca siyaasadda waxaa laga yaabaa in aada u danaynaysaan. ninkii BVVD Kherad Wilders waa tii la doortay 37 kursi uu helay. xaalkiisa hadduu maraya xildhibaanada qaar ama hay-adaha qaar ama xisbiyada qaar wada hadal kula jiray inuu dowlad soo dhiso. mala soo dhisay lama soo dhisin insha allah videoga dambe uga hadli doonaa haddii allaha awoodda la yiraahda iyo si diiblasaan bilan qaadayba wuxuu aaminsan yahay idiisoo bandhigi doona. marka waxaan usoo bandhigaya wuxuu aaminsan yahay wax kale maahin. waxaan rabaa dadka intay cajaladahaas kasoo qaataan sheegaan inay markaas naga joojiyaan. oo maxay u joojinayaan? dee wax aadan qofka uusan dhihin inaad ka sheegta maahin. saasaa maqlayna xujo ma noqonayso. wixii waa in facti isaga ninkii wixii gacantiisa ku qoray ayaa ila wadaagi doonaa aniga. sababtoo ah waa la yiri iyo saasay ahayd iyo dadka lama wadaagno. ilaahayna waa diiday inta arrintaas. ina bacda danni ismu inaad iska tiraahdo waa la yiri iyo waan maqlay iyo arrinta noocaas dadkeenna way ku badan tahay. waa inaynu joojinaa dhaqan ahaan iyo ficil ahaan. sababtoo wax aakhiradaada usoo noqonayo waxaad ku hadlayso maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid. waxaad ku hadlayso rabbilcaalamiin waa lagula socdaa, waa lagu ogyahay. marka qof walba isxisaabi. intaan lagu xisaabin maalmo yaraad dunidan joogaysaa. ilaahay waxaan ka rajayn kuwii wanaagga sheegay inuu ilaahay naga dhiga. waxayna kaga tegi walaalaha dhammaan ammaano allah.